kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo muuqaal kale oo cajiib ah ku soo dhawaada kanaalka xogta geeska daawadayaal subscribe saar daawadayaal waxa ay soo taraya eedaha loo jeedinayo fanaanka weyn ee Nimcaan Hilaac iyadoo lagu haysto heesu soo saaray saacadii ugu dambeeyay isla markaasina uu ku durayay Somaliland gaar ahaan madaxda oo uu sheegay in lagu xirayo deyr kaligii isla markaasina uu rabo inuu xorriyad ku noolaado oo dadkiisa la noolaado arrintaasi waxa ka horeysay in boorama ay mudaharaadyo ka dhaceen isla markaasina la qaatay calanka buluugga ee Soomaaliya isla markaasina lagu xidhay halkaasi ugu yaraan 50 dhalinyaro ama ka badan isla markaasina uu Nimcaan Hilaac la oran karo wuxuu ka gubtay arrintaasi heesna uu soo qaaday inkastoo uu heestani ku sheegay in uu maalmaha xorriyadda kala soo habsaamay oo uu doonayay in maalinta xorriyadda soo saaro isla markaasina kowda luuliya oo maalinta xorriyadda iyo midnimada Soomaaliyeed oo Soomaaliya ay xusto kowda luuliyo sanad kasta daba inta markii laga yimaado Nimcaan Hilaac waxay hayaan abwaankiisii hore iyo fanaankiisii hore imikana xildhibaanka golaha wakiilada Somaliland ee Xasan Dhuxul kaasoo u sameeyay heeso badan oo uu Nimcaan Hilaac qaado hadda waa qofka ay isugu neceb yihiin isla markaasina markii uu Nimcaan Hilaac soo saaray heestani ee uu ogaaday Xasan Dhuxul wuxuu bartiisa Facebook soo dhigay qoraal sidan u dhignaa inkastoo uu Nimcaan Hilaac uuna si rasmi ah uga hadlin arrintani haddana waxaa la isla dhex marayaa baraha bulshada oo wariyayaasha ugu waaweyn iyo kuwa wax qora ay soo dhigayaan arrintan heesta ku saabsan oo heesta erayadeeda laga dheehan karo in uu sameeyay abwaan loo dirsaday isla markaasina in badan la isku hawlay sidii looga shaqayn lahaa erayo sidani oo kale uu adag haddaba Nimcaan Hilaac ayaa sanadihii ugu dambeeyay ku maqnaa magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka halkaasoo uu ku tagay fiisa xaas ah oo ay xaaskiisu soo dirtay hase yeeshee markii uu Soomaaliya ka tagay wuxuu soo qaaday hees noocani oo kale ah oo la odhanayay ka raysta bukaanadii taasoo aad looga yaxay isla markaasina ay dadkuba u qaateen in cid gaar lagu ataagayo tanna waa mid kaba sii xag jirta oo waaba caddahay cidda lagu ataagaya balse isagu kama uusan hadlin oo lama oran karo cidaas uga jeedaa balse wuxuu sheegay inuu ugu talagalay xuska maalinta xorriyadda iyo kowda luuliyo oo uu la soo habsaamay isla markaasina uu hadda soo saaray arrintaasina uu ka cudur daaranayo habsanka ku dhacay heesta haddaba waxaa jirta arrin la yaab leh oo la isweydiinayo waxaana la isweydiinayaa dhinaca saydka reer Somaliland bal waxa ay soo wadaan iyo hargeysa heesta ka soo bixi doonta oo la wada sugayo